الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo dhaweynayaa aqal kaari ayaan imika ku soo dhaweynayaa aqal ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan ku salaamayaa 114 meel alla meela joogtaan ba Afrika iyo Asia iyo Europe meesha joogtaan ba salaam ban galgacaltooyaan idin soo fidinaynaa halkan waxa isugu yimid hadii aanu nahay reer Burco ama Garoowe ama hawdkii iyo aniga ummadii daanu nahay koob iyo 20 ka ardaa beeraha gabooye ama beeraha madibaan waxaan idin soo gudbinaynaa muuqaalkii oo rasmiga ahaa oo dadkii guddiyiba noo qaadi waayay hadii aanu nahay koob iyo 20 ka ardaa madibaan oo daladaas ah mid aniga magaalo kastaba ha joogeen waxaan idin soo gudbinaynaa salaan kalgacaltooyo oo aniga boqortooyo oo walaaltinimo oo ehelnimo oo odaynimo ayaan idin soo gudbinaynaa idina taas oo kale ayaan idinka rabnaa waa tii ogeydeen oo maalin dhaweyto qoladii aynu isku bahdahayn halkaa nooga yar booday marka waxaan leenahay nin magaalo ka dadow siiga yar marka haddaynu nahay koob iyo 20 ka ardaa beeraha madibaan waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan gacaltooyo walaaltinimo odaynimo ehelnimo idina sidaas oo kale ayaan idinka sugaynaa tamartayaduna waa iska yartahado roob la'aan iyo suuqa iyagoo iska barakaysan iyo waxbaan helay oo waad ogtiinoo dee miidiyaha waa ka daawataan Soomaaliya iyo Soomaaliyeedba waxa ka taagan abaaro iyo wax khayr laho wanaagsan waa ka taagan yihiin laakiin abaarahaas iyo bisaarada iyo waxbaan nagu helay marka sidaanu meesha ku nimid baaba waxay tahay kalgacayl iyo walaaltinimo iyo walaalnimo marka saasaanu meeshu waa wada buuxdaa waa aragtaan labadii hoolba waa buuxaan waa kalgacayl ay isugu yimaadeen iyo walaaltinimo iyo odaynimo markaas sidaa idinna lagu ogaada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي كاسوا عاقل حرس كاري حرس السمطر وحنم قالوا كسر دوينا يا سلطان سحرديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه رسول. كمان تاليد أوردن وحلالي في مدينة ونسلام لنا وننصر دعينا هل كنا بريها بواحد نكون الشر مدينة شركة سوء تنها بيرها إنا نكهذا الله ولما بيش مدينة تدخل كمتري وأنا أركت المقال كودي يو أنا كودي. وين يا نمكنا رشيد عبد حوش سياسي بيشا وإسلام كان كيسو وين يا بالرشيد هذا نو تدي أقوياء كي كان عطيه مدابة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا سلطان كشاغي ورشيد عبد حوش وإذن كسلام يا قول كتبلر مقالة برعو قرب جوجتا بيش مديبان جوجتا شنطة قاردة الدنيا waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaad moodaa sida laga cudur daaranayo meesha oo nagu yar darteed inaan beeshii isugu iman sida aad la socotaanna gobolka togdheer waxa weeye xadunta beesha madhigaan waad ogtahay deegaamaynu kala firqsan buu madhigaanku degan yahay tilbaahu kala deganaado ama qoysas u kala deganaado laakiin meesha xidhiidhisa ee xudunta u ah waa gobolka togdheer had iyo jeerna asaaska shirarku wuxuu ka bilaabmaa magaalada burco iyadii baanu ka bilownay hawshanna ma doonayno inay maanta idin soo gaadho ma ahayn kamaradaha iyo akhbaartayadu waa ogtiinoo madhibaan midmadow badan baa soo kala galay midmadowga inaanu la fagubno oo dhammayno oo idinkana warbixin idin siinaanu doonaynay laakiin waa laydinkala maarmi waayo furitaanka shirka waxa laydinkala maarmi waayena waa duruufaha iyo kaalinta aad la rabo inaad ka qaadataan bilowga shirkaba ilaa xidhmadiisa ilaa furitaankiisa waa laydinkala maarmi waayo laakiin waxay ahayd inaanu qodobo madhibaan ku heshiiyey shirka ka dabadi idiin soo gudbino taasna waxay u dhacday inaanan garabkiina iyo gaashaankiina iyo gacantiina marna ka maarmin furitaanka shirka iyo xidhitaankiisaba duluucdii ka hadalku way noo dambaysaa oo madhibaan waxa lagu dhaqayo iyo waxa
dhib u ah iyo waxa dheef u ah iyo waxa laga wada hadlayaba waxa weeye shirar dambe oo badan baa dhici doona midaad la socotaan iyo midaan idiin soo tabinaba way u qaybsami doonaan insha allahu hawshii halkaasay ka bilaamatay aniga waxaan jeclaa siyaasi waan ahay laakiin maanta meeshaan joogo siyaasi kuma ihi waad fahmaysaan baan malaynay waxay iga tahay waxaan islahaa inta cimrigaa ka hadhay alla kacabsiga fara idinkii annagaba waxaan iyo nafteyda u dardaarmaya alla kacabsiga inaynu shiigii baynu baraarugnay oo waa dunidu shiigii bay ku jirtaa inaynu alla kacabsi isfarno way quman tahay laakiin maanta waxaad moodaa dadkii aanu ku tiirsanay sidii odayga